asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada kanaalka garaadshe waa anigoo ah maxamed cali mowduuceenan amba muuqaalkan muuqaaladii hore uu ka duwan yahay waa muuqaal aynu ku tijaabinayno heerka garasho ee maskaxda qaabka ay su-aaluhu u dhacayaan ayaa ah in su-aasha marka lagu weydiiyo waqti laguu qabanayo waqtigaa dad kaga jawaabi weydiinna jawaabta su-aasha ayaynu sheegaynaa aynoo bilaaba su-aasha koowaad sawirkan kuu muuqda waa kee qofka aan caadiga ahayn amba ibliiska amba vampireka ah jawaabta su-aasha waa sawirka koowaad waayo haddaad eegtid miyaaradda halkaa ka soo muuqata qofkani kuma jiro haddii aad su-aashan ka jawaabtay hambalyo haddii aanad ka jawaabinna su-aalaha soo socda ayaad ka jawaabi doontaa isku day wacan su-aasha labaad ayaa waxay odhanaysaa waa maxay qaladka ku jira sawirkani jawaabta su-aasha qaladka ku jira waa tirooyinka lambarada lambarka 4 halkii 9 uu yaalay su-aasha saddexaad waa maxay qaladka ku jira sawirkani muddada aad haysataa aad bay kugu kooban tahay jawaabta su-aasha ayay waxay tahay sawirkani ma laha meeshii furaha laga gelinay qaladka ku jirna waa kaas su-aasha afraad maxay labadan sawir ku kala duwan yihiin muddadaad haysataa way ka kooban tahay kuwii hore degdeg u soo saar jawaabta su-aashu waa mobilkaaga kala rog amba device-ka isticmaalisid labada sawir sidaas ayaad jawaabteeda halkaa ka heli doontaa su-aasha shanaad adiga oo gurigaaga jooga ayaa lagu sheegay in guriga uu soo galay vampire uuna dili doono qofkii ayaa ku sheegay sawirkiisa waxaanad u yeedhay dhammaan shaqaalihii guriga joogay cunta kariyihii ayaad ku tidhi maxaad qabanaysay xilliga vampire-ku soo galay waxa uu kugu yidhi aniga waxaan cabbayay tamaato la shiiday qoftii labaad ee guriga joogtay oo magaceedu yahay mayd ayaad weydiisay xilligaas maxaad qabanaysay waxay kugu jawaabtay anigu waxaan marsay maxaa la yidhaha labis adigu waxay dumarku afka marsadaan ay kugu jawaabtay qofkii saddexaad oo butler la odhanayay ayaad weydiisay maxaad qabanaysay xilligaasi waxa uu kugu jawaabay anigu waxaan qabanayay tv-ga ayaan daawanay xilligaas aad arrintan ka hadlaysid waa kuma haddaba qofkan vampire-ka ah jawaabta su-aashu ayaa waxay tahay horta markii ugu horreysayba waxaad haysatay sawirka vampire-ka ninkan ku muuqda dhegihiisu way ka duwan yihiin dhegaha kale laakiin sawirkaad haysid uga isku dhego ninka vampire-kana waa ninkaas su-aasha lixaad afartan looga ee kuu muuqda waa kee sawirka ku duwani sawirka ku duwani waa ta koowaad oo ma laha dhibicda ay leeyihiin kuwa kale su-aasha lixaad adigoo tareen fuushan oo magaalo kale u raacay ayaa tareenka waxaa la soo raacday 3 qof saddexdii qofood ayaa waxay kuugu dhowaayeen kuraasi aad kuugu dhowaado waxaad wadatay saacad Apple Watch ah ama saacad qaali ah saacaddii ayaad miiska saartay tareenkii ayaa waxa uu galay meel goda buur hoosteed madow ayuuna noqotay tareenka dhexdiisii madow ayuu noqday markaas waxaa dhacday in saacadaadii markuu tareenku ka soo baxay meesha madowga iftiinka yimid ama cadceedda aad saacadaadii aad weydo saddexdii qofood ayaad weydiisay qofta koowaad oo magaceeda la yidhaha mari ayaad waxaad ku tidhi saacadayda aawe ayaad weydiisay aduu saa doontid weydii waxay kugu tidhi intii aan soo soconay waan hurday anigu qofkii labaad oo Christopher la odhan jiray ayaa kugu jawaabay isaguna aniguna waxaan raadinayay boorsadaydii qofkii saddexaad ayaa kugu yidhi aniguna waxaan ciyaarayay game ay mobilkay ku ciyaaray waa kii haddaba qofka saacadaada jawaabta su-aasha waxay tahay mari weeyaan oo intii waxay isku qafashiftayba intii ay soo socotay inta uu tareenku soo socday meesha madow way hurday su-aasheena ugu dambeysay barnaamijkeenan ayaa waxay odhanaysaa sawirkan ku muuqda keebad badbaadin lahayd
waxaanad kaga soo jawaabtaa dhanka commentiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.